shir jarayd oo maanta magaalada Hargeysa ay si wada jir ah ugu wada qabteen wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo gudoomiyaha guddida imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa waxay si rasmi ah u shaaciyeen maanta la soo gabagabiyay imtixaankii shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee dalka iyagoona sheegay in imtixaankaasi uu ku soo dhamaaday si guul ah isla markaana uu mahad celiyay cid kasta oo kala qayb qaadatay hirgelinta imtixaankaasi waxa mahad leh oon aad iyo aad kun jeer u mahadnaqaynaa ilaaha maanta inoo soo gabagabeeyey imtixaankii shahaadiga ahaa fasalka afraad ee dugsiyada sare ee dalka Somaliland min Saylac ilaa Buraan oo si nabada inoogu dhamaaday ilaahay baan kun jeer u mahadnaqaynaa waanan shukriyeynaa anigu waxa kaliya oo jecelahay inaan u duceeyo ardaydii sanadkan imtixaanka u fadhiisatay runtii haddaanu intii hore markaan bilaabaynay aynu xogaa hanjabaade iyo wax isku sheeg meesha ku jiray imikana waan u ducaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inay ardaydii dadaashay ee soo dhafartay ee wax soo akhristay inay guul fiican ku guuleystaan baan ilaahay uga baryaynaa waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad ku gaarsiiyo natiijada idaylkeenba si ay jaamacadahooga u galaan taasi waa taa horaan ugu sheegay ardayda waxa weeye macallinku waa waalid waalidkuna xataa dhirbaaxadiisu waa dawo canaantiisuna waa taxliil waxa weeye macallinkuna waa sidaa wixii yaraaye qardoofka ahaa ee laysyar wixii waxba ka soo qaaday ardayduna maanta macallimiintu way isku sawirayeen macallin han isku ka sawirno markii hore wax laga yaabay in isku hanjabayo waa yahay bal haynoo dhamaado horta waxa weeye inta aynu ku noolahayna waa sidaa waaynu is ixtiraamayna waan is cafinaynaa iyaguna ardaydana waxaan u sheegayaa inay ku niyad samaadaan wax badan baa hanjabaado badan kalaaska laga dhax yiri hanjabaadu dhamaanteed wada ciqaab maaha waalidiinta mid baa ku yar baraarujinaya waalidow mas'uuliyadda ku saaran waxa weeye ardaygu intuu macallinka la jooga waa in yar inta badan laakiin adigu kula joogaan bal inanku ahaanina gunbay ka tolantaaye waqtiga imtixaankun haddaan isku nimaadno annaguna wax mamnuucayna ardaydiina wixii ay sidato waa mushkilad deydinka qudhin inaad noo dhaxaysaan baa loo baayay waxay wasaaraddu mamnuucdo inaad u sheegtaan aroorti ilmuhu imiga waxaan isku leenaynay waxa soo ciidana loo keenay waxay adeer moobilka ka kaalay iyo ka iman maayo de waalidku hadduu noo dhaxeeyo waalid walba ilmihiisa ilaa moobilka la tagi maysid imikana waxa iman doontaa waxaan say ballantu tahay ardaydu uu og yahay ardaygii moobil lagu qabtay de maadada waa laga kansar gareynaya hadda waxa laga yaabaa waalid aan waxba ogeyn isagoo iska burkiisa sito duulay inuu yimaado maxaa qofka inankan laga gooyay maxaa inantan looga jaray markiskeegi markaas un baynu wada hadli doonaa hadduu ilaahay idmo waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa oo kale inaynu ku guuleysanay ku talagalkii ahaa kordhinta tayeynta iyo kor u qaadidda waxbarashada inay iyaduna inoo suurto gashay oo ilaahay inagu guuleeyey innagoo dhammaanba ka hor tagnay agabyada sahla in wax lagu qisho iyo wixii la mid ah taasoo runtii ahayd markii ugu horreysay ay wasaaraddu si weyn u suurto geliso inay ka gaadho go'aankii isaga ahaa oo runtii inoo suurto galay iyada oo runtii arrintaana aanu uga mahad celinayno dhammaanba intii nagala shaqaysay hadday taladeeda tahay iyo hadday taagteeda tahayba aad iyo aad ugu mahad celinayno Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic SAB TV Hargeysa.